Musiibo ama dhibaato waxaa loo yaqaan xaalad nolol adag taasoo waayo-aragnimo laga dhaxlo ama sida loogu gudbo aysan ku filan xalintooda ama in la helo xal shaqeynaya. Waa xaalad cusub oo ay maareynteedu adag tahay, sida geeri naxdin leh ama isbeddel xaaladeed nololeed oo soo siyaada. Qofku dhibaatadu qabsato waxa uu dareemaa dhadhan la'aan iyo dacdaro, ammaanka aasaasiga oo liita, iyo noloshii oo faraha ka sii baxaysa. Qofka dhibaatadu hayso waxa uu yeeshaa calaamado ama dareenno oo kala duwan sida walaac, niyad jab, hurdo la'aan, caro badan, iyo jir xanuun. Dadku awood ayay u yeelan karaan xaaladahaasi adag ee noloshu aad bay u kala duwan tahay. Dad waxay dareemaan dhibka muddo kooban oo markiiba way ka gudbaan ama way ka bogsadaan. Dadna waxay u baahdaan caawimaad badan iyo waqti. Dhibaatadu waxay xitaa soo celin kartaa xusuus hore ee xaaladihii noloshu adkeyd, taasoo keeni karta inay sii adkaato xaalad nololeed. Dhanka kale, dhibaatadu waxay suurto gelin kartaa dib u qiimeyn arrinta iyo niyad adeega. Dhibaatadu waa noocyo badan. Xaaladaha iyo marxaladaha nololeed ee kala duwan ayaa sabab u noqon kara dhibaatadu. Waxaa dhici karta arrin lama filaan ah ama dhacdo naxdin leh. Dhibaatadu waxaa kaloo sababi kara arrimo culus oo isku mid ah oo soo noqnoqda. Dhacdooyinka dabiiciga ah iyo kuwa la saadaalin karo xitaa waxay sababi karaan dhibaato. Noocyo kala duwan ay dhibaatadu waxaa loo kala qeexaa dhibaatada xaaladda noloshu iyo kuwa musiibo maskaxeed. Koritaanka iyo marxaladaha adeega noloshu ay marto. Dhibaatada marxaladaha kala duwan iyo dhibaatooyinka xaaladaha noloshu waa kuwo la xiriirta waayaha noloshu kana muuqda heerarka kala duwan ee noloshu. Xitaa dhacdooyinka wanaagsan